ugu muhiimsan waxa waaye inay caddayso khilaafaadku meeshuu ka taagan yahay waana in xuduudaha badda ee Kenya iyo Soomaaliya iyadoo markaa u aragta war-saxaafadeedka haddaad aragto inay Soomaaliya had iyo jeer diidanayd ama ay rabtay inay boobto dhul ay dalka Kenya leedahay waa qodob iyaduna waxay sheegtay markaa in loogama maarmaan tahay in arrintii borderkii maritime-ka badda ee Kenya Soomaaliya la sugo iyo in kheyraadka ku jira la difaaco labada qodob baa ugu muhiimsan oo ay culays ka saartay midka xuduudaha badda ee Kenya Soomaaliya iyo kheyraadka ku jira sidii loo difaaci lahaa labadaas qodob ayaa ugu muhiim inta kale xooggeedu wuxuu ahaa taariikhdii Soomaaliya iyo Kenya iyo dhibkii soo maray iyo xuduudaha kala lahaayeen inay ka bixisay warbixin dheer oo ay taariikhda ka sheekaysay na way meesha way ku jirtay Kenya waxay sheegtay oo ay tiri jawaab ayaan ka sugaynaa Soomaaliya marka maxay tahay jawaabtaasi soo hore arrintan Soomaaliya ugama jawaabin wallahi iyadu u malayn ma inay hadda ay ka sugayso jawaab ka duwan tii ay hore ka timid laakiin waxay rabtay inay u sheegto caalamka hadalkeedana sida u dhacayay in jawaabtii ay bixisay Soomaaliya ayna ahayn mid saxa mid runta ka sheegaysa sida iyadoo hadalka u dhigtay marka waxay leedahay Soomaaliya jawaabta ay nasiisay waa jawaab aan sal iyo raad toona lahayn sababtoo ah qodobadii ay sheegto oo dhan waxay leedahay waxa caddayn u ah in maababkaas ay geysay meesha ay sheeganayso ay leedahay waa badayadii oo ayna ilaa hadda dawladda Soomaaliya inkirayba inay maabki geysay sidoo kale hadallada wasiiradda waxaa ka mid ahaa in Kenya ay aad isugu dayayso inay isxakamayso oo aysan tallaabo xad dhaaf ah qaadin marka maxay kula tahay tallaabadaas ay Kenya ku hanjabayso wallahi horta Kenya anigu baba garan karo hadda sida ay rabto inay Soomaaliya hadda tallaabooyin intay qaado ugu mira dhali karto Kenya waxay caddaysay wax taariikhda Soomaaliya ku cad oo ah inayna Soomaaliya weligeed ayna aqoonsan xuduudihii uu gumaysigu ka tagay iyadoo tiri 1924 waxaa la sameeyay xuduudo waxaana sameeyay Ingiriiska iyo Talyaaniga 1964 waxaa xuduudahaas lagu aqoonsaday shirarkii African Unionka waxay tiri Soomaaliya weligeed xuduudaha mayna aqoonsan mayna ogolaan mar haddayna Soomaaliya marka xuduudaha aqoonsan xuduudaha la aqoonsana ay ku jirto NFD iyadoo hadda intay xuduudii Kenya soo dhaaftay dhulkii NFD qaadatay ayay dhulkii Soomaaliya badeedii hadda sheeganaysaa oo leedahay walaana marka hadafka ugu weyn ee leedahay waxa weeye inay caalamka u sii sheegto in go'aanka maxkamadda ka soo bixi doona oo go'aan Soomaaliya u badan inay ku guuleysato inay hadda ka sii degto oo ay sii caddayso inuusan go'aankaas marnaba ayna aqbalayn waxaa sidoo kale jirtay inay tiri waxaa laga yaabaa in Kenya ay cunaqabatayn ku soo rogto Soomaaliya marka cunaqabatayn noocee ah ayaa laga fili karaa ayay kula tahay hadda sida loo eego Soomaaliya qalad istiraatiijiga way gashay diblomaasiyadda ama xiriir laba wadan markuu xumaado tallaabo markuu dalka qaado tallaabada mid u dhigan baa la qaadaa Soomaaliya reciprocity way lumisay reciprocity wuxuu noqon lahaa iyadana in xuduudkeeda la sheego hadda anigu ma garan karo saan u sheegan karno xuduudkeena sababtoo inaga xuduudkii inaaba cadeyno caleen xuduudkeega waa halkaas uu ku egyahay marka halkaas khasaaray Soomaalidu ka haysata faa'iido waa ka haysataa maxkamaddu waxa loo yaabaa in iyada go'aan u soo gaadho Kenya cunaqabatayn bay sameeyeen hadda cunaqabatayn ku soo rogi cunaqabatayn dawladda madaxdeeda kuma soo rogi hadday ku soo rogto madaxdu way u dhib yar tahay way u roon tahay jidad kale ayay dalka mari hay'adihii United Nationska iyo hay'adihii caalamka ee Soomaaliya Nairobi ku beesgaraysnaana dawladdu waxay ku qasbay inay ka soo guuraan dalka maadaama ay Kenya madaxdii dalka cunaqabatayn saarto halka Kenya ku khasaaray ganacsato hadday cunaqabatayn saarto hantida iyo dhaqaalaha ugu badan ee Soomaaliya ee Kenya yaala faa'iido Kenya ku qabta halkaas khasaare kale ku qabta cunaqabatayn cid kale oo ay saari kartaa horta oo Kenya oo maanta ku handadi kartaa ma dawladda Kenya ayaa shalay ka jawaabtay qoraalkii ay dawladda Soomaaliya u dirtay ee ku aadanaa go'aankii ay dawladda Kenya ugu yeertay safiirkeeda una soo saaratay safiirkeeda Soomaaliya ama dib ula soo laabatay warbixinta waxay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan wasiirka arrimaha dibadda Kenya Ambassador Monica Juma
ayaa sheegtay in aysan Kenya weli ku qanacsanayn jawaabtii dowladda Soomaaliya. The federal government of Somalia is deliberately misleading the world because there is a schedule, there is a plan, there is a process, and it has been announced. dowladda Soomaaliya si ku talagal ah ayay u marin habaaminaysaa dunida waayo waxaa jira qorshe jadwal lagu dhawaaqay iyo dad lagu casuumay kulanka London inay ka qayb galaan sidoo kale meelaha shidaalka uu ku jiro ee la soo bandhigay wuxuu ka hor imanayaa ballantii maxkamadda ee ahayd in qolana aysan qaadi karin tallaabo hal dhinac ah waxana ay arrimahani dhaawacayaan niyad wanaaga iyo sugitaankii go'aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda. intaasi waxaa sii dheer muddada loo qabtay soo saarista shidaalkan waa January 2020 waxay si cad u muujinaysaa ujeedka Soomaaliya iyo qorshaha ay wadato ee ah inay soo saarto shidaalka dhulbadeedka lagu muransan yahay xilligaasi oo ka horeeyana waqtiga ay maxkamaddu go'aanka gaarayso. Kenya marna kama tanaasuleyso taaka kamida dhulkeeda. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo la xiriirnana waxay noo sheegeen inay arrimahaasi wada tashi ka yeelan doonaan lagana yaabo in ay jawaab ka soo saaraan. horey ayayse dowladda Soomaaliya arrintan uga jawaabtay iyadoo sheegtay inaysan ku jirin maabkii London lagu soo bandhigay dhulka Kenya ay isku hayaan ee dacwadiisu ay socoto. dadka qaar waxay sheegeen in Kenya aysan markii horeba ku qanacsanayn in dacwadda badda ay Soomaaliya isku hayaan ay gaarto maxkamadda caalamiga ah iyadoo door bidaysa xal hoosaad. waa kan qareen Axmed Naasir Cabdullaahi oo ka waramaya waxa uu ku sababeyn lahaa carada Kenya. markaad fiirisid Kenya sababta arrintaas u keenay oo ku marmaritoonay ama Soomaaliya inay bixisay dhulkaas baddaas la isku haysto oo kabriyaalkiisay dadkan oo badi u aqaana cilmigaas waxaa la ogaaday Soomaaliya inayna bixin dhulkaas oo baddaas kabriyaalkeena u dhiibay laakiin anaga sida ila muuqata ilaa hadda Kenya wax u dhaqatay oo safiirkii Soomaaliya dalka ka eritay oo safiirkeedina maxamed jooga oo soo ceshatay sababo specific oo la dhigi kara taasa sababtay ilaa hadda aniga uma arkin. Ambassador Juma ayaa sheegtay in aysan albaabada wada hadalladu xirnayn balse loo baahan yahay niyad wanaag. Kenya has always chosen the path of peace, tolerance and accommodation with her neighbors. We remain committed to peaceful resolution of the dispute. Kenya waxay mar walba qaadanaysaa dhabaha nabadda iyo dulqaadka iyo qaabilaadda deriskeeda. waxaanu haysanaynaa weli wadiiqa nabadeed oo khilaafkan lagu xalliyo. albaabadeena waa u furan yihiin waana u furnaan doonaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaanu rajaynaynaa in arrintan aynu ku xallino natiijo macquul ah oo la aqbali karo taasoo ixtiraamaysa xuduudaha naga dhaxeeya ee aynu ku soo wada nooleen in ka badan 40 sano. haddaba maxay tahay tallaabada xigta ee hortaala labada dal Kenya iyo Soomaaliya si ay uga gudbaan caqabadahan diblomaasiyadeed mase muuqataa inay u baahan yihiin in wadamo kale oo darisa ama saaxiibo ah ay dhexdhexaadiyaan oo arrinta soo farageliyaan. waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere. ma muuqato in runtii dad kale oo saddexaad ay soo galaan arrinta maxkamadda awgeed sida aad ka warqabto maxkamaddu in muddo ay qaadanaysaa go'aan baana laga gaarayaa marka wixii xaal mastuura oo dhexdhexaadin iyo waxaasi waxay noqonayaan faruur kale oo habkaas maxkamadda oo sharciga ah oo lagu kala baxayo carqaladeeyo noqonaya laakiin waa furan tahay haddii labada dal ayagu ay si gaara inta u xaajoodaan iyagoo aan maxkamaddii iyo waxaas aan maaragtay faragelin ay si gooniya uga tashadaan in xiisadana la qaboojiyo xiniftana la yareeyo wanaaga iyo darisnimada iyo waxyaabahaasna laga hormariyo ugu dambayntana sharciga la tala saarto oo maxkamadda laga warsugo. isku soo wada duubay labada dal Soomaaliya iyo Kenya oo aan weli kulan foolka fool ah yeelantan iyo markii xiisadan ay soo baxday ayaa waxaa laga warsugayaa hadda jawaabta labaad oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ka bixiso hadalka shalay ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Kenya iyadoo markaasi taasina ay sawir ka bixin doonto wadiiqada labada dal ay u sii mari doonaan si ambaqaadista xiriirkoodii soo jireenka ahaa ee derisnimo. xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ee salka ku haysa muranka xuduud badeedka hase yeeshee iminka u xoobsiitay khilaafka diblomaasiyadeed ayaa cirka isku sii shareeraysa
wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma waxa ay sheegtay inaysan taako dhulkeeda ah ka tanaasuli doonin. Jawaabtaas waxay bixisay markii dowladda Kenya ay ka baaraan degtay qoraal ay 17 bishan kaga jawaabtay hadal kulul oo ay Kenya ku eedeysay Soomaaliya inay xaraashayso xirmooyinka shidaalka ee ku yaala dhulbadeedka lagu muransan yahay. waxa Kenya ay u yeeratay safiirkeedii ka fadhiyay magaalada Muqdisho waxaana safiirka Soomaaliya ee Nairobi ay u dirtay wadatashi inuu la sameeyo xukuumaddiisa. Soomaaliya waxa ay beenisay inay xaraashayso xirmooyinka uu shidaalku ku jiro ee badda. barnaamijka dooda ay waxay ila tahayna galabta waxaan ku soo qaadanaynaa mowduucan ku saabsan khilaafka sii xoogaysanaya u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya inagoo eegi doona cawaaqibka ka dhalan kala mushaakilkan halka uu ku biyo shuban karo iyo tallaabooyinka u furan labada dhinac in ay qaadaan si looga fogaado in arrintu ay faraha ka baxdo. haddaba intaanan u gudagelin barnaamijka iyo dadka igala qaybgalaya bal marka hore aan ku bilowno warbixin aan si guud ugu eegayno khilaafkan iyo waxa uu salka ku hayo waxaana soo Bashir Maxamed Caato. xiisada diblomaasiyadeed ee soo kala dhaxgashay wadamada Kenya iyo Soomaaliya sabtideen soo dhaafnay ayaa ahayd mid aan hore loo arag oo salka ku haysa muran xagga xuduudda badda oo u dhaxaysa labada wadan. Kenya ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay xaraashtay shidaal laga sahmiyay dhul ay sheegtay inay leedahay laguna soo bandhigay shirkii shidaalka Soomaalida ee London. inkastoo dowladda Soomaaliya ay arrintaasi beenisay sheegtayna in mar walba ay qadarinayso daris wanaaga. hase yeeshee maalin ka hor ayaa dowladda Kenya waxay si cad u sheegtay in Soomaaliya aysan marnaba gacanta u gelin doonin qayb yar oo ka mid ah dhulka ay sheegtay inay leedahay waxaana ay dalbatay in Soomaaliya ay sharaxaad buuxda ka bixiso. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Kenya Monica Juma waxay hoosta ka xariiqday inay jirto cunaqabateyn ay ku soo rogaan Soomaaliya taasi oo ku xirnaan karta bay tiri siday noqoto jawaabta ay ka helaan xukuumadda Muqdisho. xildhibaanada arrimaha caalamka ayaa BBC-da u sheegay in cunaqabateynada caalamka ay yihiin laba mid waa mid golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku soo rogo dal ama shakhsiyaad dalalka kale caalamkan ay ku qasban yihiin inay dhaqangeliyaan halka cunaqabateynta kalena ay tahay mid dal uu ku soo rogo dalka kale marka uu xiriirkoodu xumaado dalalka kale caalamka iyo hay'adaha caalamiguna aysan ku qasbanayn inay dhaqangeliyaan. dalka Kenya oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa dadkaasi waxa ka mid ah ganacsato haysata baasaboor Soomaaliga, siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya yimaada qoysaskooduna ay degan yihiin arday wax ka barta jaamacadaha waddanka Kenya iyo qaxooti Soomaaliyeed oo ku nool xeryaha qaxootiga iyo magaalooyinka waaweyn ee waddanka Kenya. waxaana cunaqabateyntaasi ay la bartilmaamaysan kartaa xildhibaanada madaxda dowladda federaalka ee ganacsatada Soomaalida ee waddanka Kenya. inkastoo qaxooti badan oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin waddankan ayaa haddana waxa la rumaysan yahay in si qasab ah aanan loogu celin karin Soomaaliya maadaama Kenya ay ka mid tahay dalalkii saxiixay heshiiskii caalamiga ee dhowrayay xuquuqda qaxootiga ee Geneva Convention. marka laga hadlayo qasaaraha maaliyadeed ee ka dhalan kara cunaqabateynada ay Kenya sheegtay waa mid iska cad in xurguf walba oo soo kala dhaxgasha dalal daris ah laga dhaxli karo dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhaqaale xumo. hase yeeshee Kenya oo dakhli badan oo ka soo gala jaadka ay geysa Soomaaliya ayaa haddii ay ku dhawaaqdo cunaqabateynta ay sheegtay waxa la rumaysan yahay in saameyn dhaqaale uu ku keeni karo maadaama ay aad u yar tahay waxyaabaha Soomaaliya ee u soo dhuufaysa waddanka Kenya. xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya oo sii xumaada ayaa sidoo kale saameyn kara hay'adaha caalamiga ee ka howlgala Soomaaliya balse fadhigoodu yahay waddanka Kenya. waxaana dowladda Soomaaliya ay ku khasbanaan doontaa in dhammaan hay'adahaasi iyo safaaradaha reer galbeedka ay fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ay u soo wareegaan gudaha Soomaaliya. waxaase mar walba labada dhinac ay dan ugu jirtaa in la xaliyo xiisadda diblomaasiyadeed inkastoo Soomaaliya ay door bidayso go'aanka maxkamadda Kenyana ay u muuqato inay danaynayso wadahadal lagu dhameeyo muranka kala dhexeeya Soomaaliya. Bashir Maxamed Caato aad ayuu u mahadsan yahay. haddaba barnaamijkan u gudagalnay waxa ay la qayb qaadanaya barnaamijka xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ku jira khadka magaalada Muqdisho. magaalada Dooxana waxa khadka kaga jira Danjire Iid Bedel oo hore u ahaa ku-xigeenka danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay. istuudiyahana waxa goordhow igu soo biiri doona Maxamed Cabdirasaaq oo arrimaha gobolka Geeska Afrika ka faalooda. laakiin marka hore aan ku hormaro Danjire Iid Bedel oo jooga magaalada Dooxa ee waddanka Qatar. mudane Iid Bedel arrintan mar ayay dibadda u soo baxday oo furka la tuuray oo la arkay Kenya oo safiirkeedina soo ceshanaysa kii Soomaaliyana faraysa in waddanka uu ku laabto. marka halkee arrintan ay ka bilaabatay marxaladii ay soo martay iyo heerkan kulul ee ay gaartay ma noo soo koobi kartaa? horta waa mahadsantihiin dadka Soomaaliyeed ee dhegeysanaya na salaam diran usoo gudbiyo xildhibaan Jeesow oo dooda igala qayb galaya.
arrintan waxay soo jiitamaysa muddo mid de historic oo taariikha jirta oo xiriirka labada wadan waagii hore gumaysiga uu Afrika gumaysanayay kadibna xornimadii la qaatay lixdameeyadii xiriirka Soomaaliya iyo Kenya meel xun buu gaaray sababtoo ah dhul iyo deegaan iyo dad baan isku haysanay oo marka Ingiriisku uu ku daray dalkii Kenya mar dhexe xiriirka Soomaaliya iyo Kenya aad buu u fiicnaaday kadibna isbedeladii ka dhacay geeska Afrika khaasatan markii dawladii dhexe ee Daniel Armo ay mareysay kadib markii la isku dayay in la inqilaabo dawladii Daniel Armo saraakiishii badbaadisay ay noqdeen dad saraakiil ah oo ciidamada ah oo Kenya ka tirsan inqilaabkii ka hortageen wixii ka dambeeyay Mo iyo shacabka Kenya dadkii Soomaaliyeed ee Kenyaatiga ahaa iyo sami iyo walaaltinimo dhex martay Soomaalidii Kenyana dawladnimadoodii iyo awoodihii ay dadka ku lahaayeen Kenya aad buu u soo kacay taasna waxay jidka u xaaqday in xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya aad u fiicnaado iyadoo halkaa marayso xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya ka baxay meesha kadib burburkii dawladii Maxamed Siyaad Barre ee sagaashameeyadii kadibna dagaal sokeeye iyo buuq badan baa la galay isku soo jiido arrinta hadda taagan arrinta shidaalka ah iyo kheyraadka la isku hayo waa arrin xuduudo oo u dhaxeeya labada wadan oo taariikhda inta la joogana aan xuduudadaas la xalin Soomaaliyana ay had iyo jeer taagneed anagu xuduudihii gumaysigu ka tagay ma aqoonsani Kenyana ay taagneed xuduudihii gumaysigu uu ka tagay hal la ixtiraamo iyadoo oo saas dalku ku burburay kadibna sida aad walaalo raba inaan idin sheego dawladii Maxamed Siyaad Barre kheyraadka dalka ku jira way isku dayday inay soo saarto arrinta hadda khaaska ana waxa keenaya waxa weeye ceelal shidaala ayaa waxaa laga qoday oo badda ah xuduudan hadda ay noo dhaxaysa inaga iyo Kenya ee NFD Soomaalida qaarkoodna u yaqaanaan shidaal baa la qoday Maxamed Siyaad Barre bixiyay 1982 lacag $4 milyan oo dollar ayaa lagu bixiyay company Norwegian la siiyay wasiirku ahaa Xuseen Cabdiqaadir Qaasim wasiir ku-xigeenka macdanta biyaha waa Maxamed Xaaji xuduuda badda ee hadda dhulkan hadda ay Kenya sheeganaysa ay soo durksatay id bedel aan ka dhaxgalay shidaalka ma laga helay mise waa laga qoday waa la baaray 82 baa la baaray Xuseen Cabdiqaadir Qaasim iyo Maxamed Xaaji baa bixiyay company la siiyay Norway buu ahaa $4 milyan oo dollar baa ku baxay 82 ilaa 84 bay baareen shidaalkii iyo gaaskii way ka heleen iyadoo markay ka heleen dhacdadii keenay baa buuqii siyaasiga dalka galay kadibna way burburtay dawladda Kenya iyo kambaniyada reer galbeedkuna way la socdeen meesha iyadoo kheyraad shidaal buuxa ayay dawladnimadii Soomaaliya burburtay marka ay burburtayna iyadoo sidaas ay hadda xilliyadii dambe Kenya iyaduna baaratay shidaal damacna ka galay kadibna ay soo dursatay xuduudii ay nala lahayd iyadoo ku dareynaysa inay la soo baxdo kheyraadka meesha ku jira marka problemka ugu weyn waxa weeye mid xuduudeed iyo mid kheyraad oo aan isku haysano dalka Kenya meeshaasna waxa ku yaala ceelal shidaal oo la helay xilligii Maxamed Siyaad Barre waayahay waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow magaalada Muqdisho joogta arrintanna waa la socotay waana ka hadashay dawladda Kenyana dooda ugu weyn ee ay qabto waxay tahay shirkii London lagu qabtay arrimaha shidaalka looga hadlayay waxa ay leedahay Soomaaliya waxa ay xaraash ku bixisay xirmooyin shidaal oo la isku haysto gaar ahaan dhul umuran ka taagan yahay oo weli kiiskiisa maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ay gacanta ku hayso arrintaas maxaa kala socotaa waa mahadsan tahay waan idin salaamayaa ambassador ciidna waa salaamayaa oo doodii gal qayb galay iyo dhammaan idinkoo dhan wariyaashiina waa idin salaamayaa runtii arrintan dawladda aan dariska nahay saaxiibada aan nahay Kenya ka soo yeertay arrin ummadda Soomaaliyeed fajac ku noqotay ayay ahayd haddii Kenya tawasha ay qabto ruling oo iyo sharci loo maro oo muxuu ahaay iqaab loo maro siyaasadeed ayaa aabadneed ambassadorada in ay ku warsiyaan oo finalkii ugu dambeeyay meeshii ay dawladdu ku kala tagi lahaayeen nasiib darro ahayd arrinta anagoo sidaa u aragno haddii aan usoo laabto su-aashaada Soomaaliya iyo Kenya muddo badan muxuu ahaay waxay ay dood ka taagneen xuduudka dhuleed laakiin bad kama ayna taagneen xaraash dawladda qoraalkeeda waxaa ku jiray Kenya
iyadoo oo ay aflagaadooyin ka buuxeen haddana inay Soomaaliya ay xaraash ay ku bixisay shidaal horta marka ugu horeyso caalamka oo dhanna waa og yahay dadka Soomaaliyeedna waa og yihiin shirka intii ka qayb gashay waa og tahay wax xaraash oo la bixiyo ma jiraan laakiin xaq waxaan u leenahay kheyraadka dalkayna inaan soo bandhigno oo aan carweyn u sameeyno oo aan caalamka tusno ayaan muxuu ahay xaq u leenahay laakiin haddana meesha hadda dacwadeeda annaga gudbin dacwada muxuu ahay Kenya ay rabtay inay nagu qabsato dhulkayna ee badda ah muxuu ahay xirmooyinkaas hadda muxuu ahay bandhiga loo sameeyay kuma ay jiraan shirkadii baartina waa sheegtay madaxdii Soomaaliyeedna way sheegeen laakiin waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa urgiga oohinta ka weyn dalka Kenya ee aan diriskana ay saaxiibada aan nahay ee aan diriskana ahaan doono way ka weyn tahay arinteeda xirma iyo muxuu ahay bad lagu soo xadgudbiyo anaga xadgudub iyadaan aan ugu sameeyo hoyso anaga ma doonayno dal aan dirisnahay inaan xadgudub ka sameeyno Soomaaliyana dhaqankeeda waxa weeye diriskeeda way ixtiraamtaa diriskeeda ma dhibto laakiin markii la dhibo feejignaanta la galo ummadda Soomaaliyeed caan bay ku tahay inay ay taxadirkeeda ay arintaas ka muujiso waxaan rabaa inaan iraahdo Soomaaliya iyo Kenya wax cadaawad oo ka dhaxay sida hadda dawladda Kenya ay sheegtay wax cadaawad hoon anaga aan ognahay oo dalkayna ay u qabaan ma jirto Soomaaliyana waxaan u aqoonsanahay dawladda Kenya xilligii burburkii in dad badan oo Soomaaliyeed ay ku qaxeen abaalkaasna oo hayna laakiin wax cadaawad ah oo Soomaaliya waxa iyada ay nagu sheegtay oo anaga ilmahayna iyo ubadkayna anagaba aan ognahay malaha laakiin haddana feejignaantayna ka qabayna mar haddii dalkaas nagu tilmaamay dal cadow arrinta u baahan in la kala cadeeyaa waxay tahay madaxda Soomaaliduna waxay sheegeen in wax xaraash uusan ka dhicin magaalada London shirka markii la isugu yimid laakiin waxyaabihii la soo bandhigay waxa ka mid ahaa qorshe yani xitaa London lagu soo bandhigay oo ah in taariikha ay jiraan maxaan ku iraahdaa af Ingiriisi ay ku qornayd kelmadda bidin la yiraahdo la isticmaalay oo ah in loo tartamayo maxaan ku iraahdaa shirkado in la tartansiinayo oo la doonayo shirkadahaas tartan in loo geliyo taariikhda marka la tartansiinayo shirkadahaas isla markaana shirkadda ku guuleysata la shaacin doono waxaa la sheegay inay tahay 7 bisha November taariikhda kama dambaysta ee heshiiska ay shirkadda saxiixi doontana December 9keeda uu noqonayo kadib golaha wasiirada ee Soomaaliya ay maxaan ku raahdaa ansixin doonaan bisha January-na la dhaqan gelin doono meesha Kenya ay ka boodsan tahay waa meeshaas ma waxa leedahay waxba kama jiraan waa mahadsan tahay Faarax Lamaane annaga kheyraadkayna waa soo madhigaynaa waana beecgeynaynaa maalintii ay ahaato taariikhaha faraha badan la noqoto ku soo hormar ha noqoto ku ka dib dhac ha noqotee kheyraadka Soomaaliya ay leedahay cidna marti uguma nihin waa beecgeysanaynaa maalintii muxuu ahay ay noo suurto gasho cid kasta oo heshiis aan kula geli karnana waa kula gelaynaa laakiin waxaan ku cadaynayaa meesha tan xaduudka hadda Kenya ay rabtay inay badayna ay ka goosato ay rabto kuma jirto xirmooyinka la soo bandhiga kuma ayna jirto waxaan aaminsanahay inay waa ka mid noqon doontaa laakiin goorta ay ka mid noqonayso waa markii maxkamadda caalamiga ay go'aan ka gaadha ayaan aaminsanahay waxa waaye Faaraxow annaga gudbisanay dacwada annaga dalkayna iyo badayna lagu soo xadgudbay kalsooni buuxdaana ku qabnaa in muxuu ahay dacwadaas aan ku guulaysanayno laakiin Kenya waxa ka muuqata kalsooni darro muxuu ahay waxa ka muuqata inay dacwadaas ay kalsooni ku qabeen sideedana laba dhinac markay is dacweeyaan cidda dacwada gudbisatay iyo cidda la dacweeyay waxa kalsooni buuxdo qaba cidda wax dacweys waayo dacwo ma gudbisateen hadana kalsooni ku qaban dhulkaas inay dhulkayna ay badayna ay tahay waayahay arinta dacwada waa u soo laabanayna xildhibaan kalsooni darro badeed dacwada oo muxuu ahay laga gudbiyay laakiin culays inay ku saarto ummadda Soomaaliyeed xilligan hadda oo ay isleedahay burburay ka soo baxay inay culays ku saarto dayr
soomaaliya waa soomaaliya waxay ahaan jirtay ayna ahaan xildhibaan waa u soo laabanaynaa arrinta dacwadda iid bedel waa ku imaan doonaa laakiin stuudiyaha hadda waxaa ila fadhiya maxamed cabdirasaaq oo arrimaha isna gobolka ka faallooda si dhowna ula socday arrimahan isbedbedelayay maxamed dowladda kenya arrimaha ay soo qaaday waxaa ka mid ahaa in ay xayiraado ay adeegsan doonto ay soomaaliya kusoo rogto xiriirkan marka ilaa intee in la eg ayuu isbedeli karaa xayiraaduhuse maxay noqon karaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرتا بي بي سي وسلامتين سفيرك حلبان وان سلامة. هرتا ولي ما أعرف ملة الوزير ده أما مدحين ولا علاقة مصارية دولة الصومالية لكن السوشيال ميديا ده في السياسة مالية ولا إنساس وانا جيت وان في لكن مال أري علاقة مصارينا أما كسرنا مالهن دبلوماسية مركز كردعان وضمن حي في ريان وضع كم حافة إذا كوجري يمحى كفايديسي حدي أصوغ من كينيا بده قرارنا أنفيرينو كونغو ودنقلي هذا أصوغ أردسنين دولة لهن العقل لهن دبتي تاكنتهاي بوحالة صوصارة خيرات كيسي إلا إيا حدنا وحر مرة مقارسنو تبكي وسي صعدة وسي زيادة شخصيات baa hantida u guranayaan oo accountant sameystaan oo siyaasiyiin u badan yihiin shacabkii wadanka u dhashay lahaa deganaana nolol ma haystaan waxaa caawiya hay'adaha ogeeyaan marka su'aalaha waaweyn waxaa kamid ah horta inta aan xaraash anageena khayraadkanaga annaga Soomaaliya ahaan ma gaarsana heer aan ka faa'iideysan karno khayraadkanaga taasoo koow talabaad Kenya cadow ma ahan laakiin cadow u dhin noqon kartaa fiiri haddii aan fiirino xilli dagaalku dhacay wadamada sida aadka u soo dhawaatay waxay ahaayeen Soomaaliya camal wadan kastan Kenya camal wadan kastan wuxuu fiiriyaa xilliga uu dhibaataysan yahay wadan garabka si uu fiiriyaa oo garabka soo qaado Soomaali badan baa halkan soo maray Ilhaan Umar xilaa xuntigay maatay waa laga qaaday waxa la geeyay Mareykanka xilbi qabatay ninkan yiraahdo Ahmed Hassan Canada xutibu waxa waa la qaasa walgi marka ha kuub soo boodina badda baa dhacay su'aal soo diin waxa kamid ah koow ودن هدي خيرات كيسة وحراش جينيو شعبك ودن كدجن محيك فايديان فسوكو لابو خيرات كاس قبل كذا كسو هير دونه محيك فايديا صابتو هدي ما أنت دورة يا خيرات يجيس حراش كاسو قابة وحدي عكرت ديرتان هالشيء ولقى الدرهم شكر ولقى لكينيا أو هاد بدر صوماليا خيرات كجران إنه أوفي عيني هاي خيرات كيسو جيرس دولة صوماليا سومركا heshiiskaas laakiin cabdiraxmaan uu ka hadlay waanu iska fogeeyey weliba waxa uu sheegay mar uu waraysi siiyey BBC-da in uu mudan yahay bilad in la siiyo maadaama uu ahaa ninka ugu horreeyey ee qayladhaanta sameeyey taas laakiin aan ka gudubno aan fiirino xaaladda iminka taagan iminka waxaa taagan khilaaf diblomaasiyadeed iyo muran badeed labadaasa taagan labadaas marka cawaaqibka ay yeelan doonaan iyo halka ay ku biyo shuban doonaan maxay noqon karaan danjire iid bedel arrintan waxaa la isdhaafsanayaa warqado iyo luqado diblomaasiyadeed halkee u socotaa ayaa is leedahay horta farxaana waa mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal muhiim ah waan ka jawaabayaa laakiin laba wax baan rabaa inaan fiiyo waxaa la yidhi gaalka dil garkiisana sii kenya qalad weyn bay ku jirtaa sidaasoo kalena soomaalidu qalad weyn bay gashay kenya qalad weyn bay ku jirtaa meeshan shidaal baa ku jira xuduudihii soomaaliya waaye way og tahay damac baa ka galay inay si dawladnimo iyo saaxiibtinimo labadii wadan u wada hadlaan iyadoon dhulka sheeganayn khayraadkaas iyo kuwo ka badanna maalgelin Soomaaliya way ka heli lahayd hadda dhowr ceel oo Jubbaland ku yaala xuduudaheeda weeye shidaalka Soomaaliya ku jira waxaa lagu qiyaasay 110 bilyan oo barrel baa lagu qiyaasay kaliya inta gaas ku jira kay hadda ku doodayso ku ka badan bay heli lahayd dawladnimada walaaltinimada saaxiibtinimada hadday ilaalin lahayd damaca Kenya soo galay ee hadda ay dhul ballaartiga ku wado qaladkeeda Soomaalida iska leh siyaasiyiinta u carab laadiyay ee xiriir la lahaa xilliga Cabdullaahi Yuusuf bay yimaadeen annagoo dawladda yimaadeen oo yiraahdeen badda aan ka hadalno Cabdullaahi Yuusuf waa ka diiday dawladdii Sheekh Shariif baa timid way la hadleen albaabkiiba u furtay memorandum of understanding baa la saxiixay kadib memorandum of understanding la diiday xasan baa yimid wada hadal bay la gashay wuu fashilmay maxkamada la aaday farmaajo yimid kuwa siyaasiyiin oo hadda la joogo dawladda kamid ah qaarkood u carab laalay siyaasadda qaldan
dhibkan keentay qayb baynu ka nahay waayo sidii markii ugu horreysaba haddii albaabka la iska xiri lahaa waxbay ahaan lahayd madaxdii dalkan soo martay iyadaa Kenya u carab laadisay Kenya waa shukaansatay shukaansiga iyo carab laadalsiga baa keenay inuu damci Kenya uu bilo uu meel u baxo taas waa qodob halkaa inoo dhiga arrintu hadda waxay taagan tahay Kenya aniga maxkamadda inaan dan iguma jirto haddayna dan igu jirin culays siyaasi aan saaraya xiriirkii khatar gelinaya karaad baan samaynaya qabateyn baan soo jeedinaya culayskaas wuxuu ii dhalayaa aakhiritaanka dambe in miiska wada hadalka lagu soo noqdo waa siday hadda Kenya istiraatiijiyada diblomaasiyadeed ay wadato waxaa soo baxday Kenya u cad inayna maxkamadda ku guuleysanayn waxaa u cad Kenya in arrintii Soomaaliya helayso waxaa u cad Kenya inay qarash badan ku gashay maxkamad kabadiye shidaalana ay siisay inay had iyo jeer ku jirto inay wax weynayso marka meel aan ka laabta ma leh aan safiirkii la soo noqdo xiriirka diblomaasiga xiriir geliyo Soomaaliya xiriir ha ii gasho marka xiriir ii gashana aanu awood sheegto marka Kenya waxa moodaa diblomaasiyadeeda inuu hadda handadaad yahay handadaadaasna isleedahay wuu ku miro dhalayaa wala hadal baad ku helaysaa laakiin heerka ay hadda marayso dawlad Soomaaliyeed oo ku dhici karta malaha waxa ay ka yartay inay u ogolaato waayahay aad ayaad u mahadsan tahay waa isku soo laaban doonaa laakiin aan dhageysano dadweynaha iyagana barnaamijka ku taxan iyo ra'yigooda aygu Cabdirashiid Maxamed Cumar jooga magaalada Baki oo ka tirsan gobolka Awdal haddaan fikirkayga ka dhiibto muranka diblomaasiyadeed ee ka dhex aloosan dowladaha Kenya iyo Soomaaliya kuna salaysan xuduudka badda ee labada dal runtii aad iyo aad baan ugu xumahay waanan ka cudur daaranaynaa haddii aanu nahay shacabka Soomaaliyeed waana tallaabo ay dowladaha Soomaaliya soo maray ay ka gaabiyeen oo ay ku ilaalin waayeen in dalkooda ay boobaan runtiina waxa u sabab ah markasta in dowladaha ay dowladda Kenya ay uqabateen iyo wax kasta ku soo rogto in dowlad kasta oo Soomaaliya soo marta aanay ka gacan geysan balse waxaan ku talin lahaa in mees dhexe la isku yimaado lana wada hadlo dowladda Soomaaliya ay halka hadda joogto iyadoo way dabacsan tahay balse ay dabacsiiso Kenyana ay u aqli celiso garteedana ay tusto in laga garhayo si aan labada dal waajar aan la isku maandhaafin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan salaamay BBC magacaygu waa Xamdaan Maxamed Faarax Xamud Sagal waxaan ku suganahay gobdheer oo ka tirsan gobolka Maroodijeex أنا أدي هذه أن كهذا برنامج خطط وحيلة هاي BBC هذه أدبار رحمة خلاف كصوماليا هي كينيا سواء كلا دحجلي حب حب سيبنية هذا الكسب حي وسارد دارينها الدبدة ذلك كينيا أولاً يا إن أنا كينيا دافع كلمة تاكو dhinaca badda isku haystaan labada dal aad iyo aad baan uga xumahay waayo sababtoo ah de ma jirto dhul ay Kenya leedahay oo badeeda oo lagu murmaya amba cid la siiyay ma jirto laakiin su'aasha isweydiinta mudan farmaajo iyo dawladdiisu maxay kaga jawaabi doonaan sidaasay u wadi doonaan caqabada kaga soo wajahantay dalka Kenya waxa kaloo taala meesha ciidamada midowga Afrika ee Kenya ma la bixi doontaa Kenya ciidamadeeda mahadsanidin BBC waa Cabdirashiid Musaar Daale oo ka soo hadlaya degmada Dilo oo ka tirsan gobolka Awdal xiisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya aad baan uga xumahay waxayna u eeg tahay in dawladda Kenya ay wado go'aamo iyo falal gabadheer ku tooraya xiriirkii wanaagsanaa ee u dhaxeeya labada dal waxaan si qaba su'aal waa waxa ay tahay khilaafkani saameyn noocee ah ayuu ku yeelan karaa ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha wadanka Soomaaliya waayahay barnaamijkan dib ugu laabanayna xildhibaan Daahir Amiin Jeesow dadkii barnaamijka ka hadlayay waa maqlaysay labada qofood ugu dambeysay waxay soo qaadeen Kenya ciidamada ka jooga Soomaaliya oo xoogaga AMISOM kamid ah marka mar hadii khilaaf uu kala dhaxeeyo wadan ciidamo military oo hubaysan gudihii wadankaaga ay ka joogaan muran dhuleed iyo muran diblomaasiyadeedna maxaan ku raahdaa aad isla gasheen sidee uga dabaalan kartaan arrintaas waa mahadsantahay Nicola Faaraxow markii ugu horeyso waxaan rabaa inaan dib ugu laabto anoo su'aashaada u soo laabanayo hadalkii ninka aqoonyahanka ee agtaada jooga uu ka sheegay qaabka loo kheyraadka Soomaaliya loo suuq geeynayo shuruucda uu baahan yahay inta horta markii ugu horeyso qofka Soomaaliga inuu aamino waay Soomaaliya 60ka ay xurriyad qaadatay qaangaar waay
siyaasiyiin najaxsan oo muxuu ahay aad arkayseen sida jawaabda ay ka bixisay dowladdeena federaalka qaabka ay u dhigneed iyo qaabka Kenya ay u dhigneed ayaad ku kala garanaysaan qaangaarnimada siyaasadeed heerka Soomaaliya ay ka taagan tahay marka qof tuur leh tabto u saaxda asaa yaqaan qaabka aan shidaalkeena u beecgeysanayno iyo qaabka shuruucda aan u samaysanayno intaba wax dowladnimadeena iyo muxuu ahay iyo golayaasheena ku xiran waaye in la aamino oo muxuu ahay lagu kalsoonaado ayaa fiican ambassador ciid arrinta uu leeyahay khayr allah siiye muxuu ahay Kenyana waxaasay ku qaldanay Soomaaliyana waxaasay ku qaldantahay anigu waxaan qabaa Soomaaliya inayna qalad lahayn Soomaaliya ayada ayaa shaatigeeda lala qabsaday badeena waayo waxa ay Kenya ugu haysato marnaba anaga dal aan dirisnahay kuma aan xadgudbin muxuu ahay ma aan xumayn safiirkooda ma cayrin ayaga ayaa waxaan ugu tilmaamay dal cadow ah iyo dal aan bisayl siyaasadeed lahayn that is been wide dalkeena siyaasadiisu waa bisishahay tabar darha iska jirto haddii aad leedihiin burburkii ayaa saameyn ugu yeeshay oo xoog ma lihiin iyo waxa aad leedihiin war Soomaaliya canugeeda ugu yar iyo kan ugu weynba maalintii ay qadiyad Soomaali timaado isku mid waa kan jooga kiin dhaxdiis jooga iyo kan guda jooga iyo kii dalkiin jooga iyo kii Ethiopia jooga iyo kii Djibouti jooga waa isku mid xildhibaan Jeeso Soomaaliyeed markay timaado marka arrin qadiyad ah oo dhab ah waaye ma aha wax wuxuu ahay loo reason dii kara ma dowladda Kenya dabcan qalad way leedahay waa ku sheegay waxay ku kalsooneen maxkamadii muxuu ahay dacwada ay ka tahay dalka Soomaaliya wuxuu rabaa dacwadaas inuu ka gungaaro ka hor in wax faarfaan laakiin maxkamada laga noqonayo inkastoo aadan xildhibaan Jeeso inkastoo aadan wali iga jawaabin culays siyaasadeed ku saar si miis wada hadal loo yimaado mashaatigaygan dadku la gorgortamaan laakiin Soomaaliya xildhibaan Jeeso taas uu ka tagay dowladda Kenya ee aan walaalahana ee diriska aan nahay ayadaa la rabaa inay u soo noqoto waa qaxiga dhabta jira xildhibaan Jeeso waa mahadsan tahay waxaan rabaa aad weydiiso ciidamada dad anagu ciidankan mandate oo AMISOM ay ku joogaan inkastoo ay nagu tilmaameen dad cadow ku ah iyaga mar haddii qofka uu kuugu tilmaamo cadowne kaliya waxa aad ka sugtaa inuu kuugu soo duulo waayo marka waxaan hubaa in dowladda federaalka madaxdeeda ugu sarreysay iyo golayaasheedaba ay go'aan ka gaari doonaan waayahay waa mahadsan tahay doodda waxaan rabaa akhyaarta kalena maxaa lagu soo bedelaa intaba akhyaarta kalena doodda inaan wax ka siiyaan rabaa laakiin si kooban waxaan rabaa inaad si dhaqsiya lehna iigu jawaabtide Soomaaliya waxaa tiri waxay xaq u leedahay inay beec geysato shidaalkeeda waana beec geysanayna ma maqla hadalkaaga ka soo dhaxbaxay hadda ma maqlaysaa mudane Jeeso halo mudane Jeeso waayahay maxamed cabdirasaaq arrintan ciidamada AMISOM Soomaaliya iyo Kenya hadda waa la kala taagan yahay xiisad weynaana ka dhex abuurantay Kenyana ciidamada AMISOM ay kamid tahay la iskuma faraxsana halkaas maxaa ka soo socda horta sharciga yaalan ku sheegaya horta ciidan wadan ciidanka ka joogaan oo AMISOM ka joogaan dagaal ma qaadi karo waayo ciidamadaas halkaas joogaan waxay ku joogaan magaca African Mission in Soomaaliya ku joogaan dagaal ma qaadi karo waa ilaa ciidanku ka soo baxa wadankaas ciidankiisa ka soo baxdan Kenya ma soo baxay ciidanka madada waayo ciidankaas wuxuu ku dhaqaale ku haysta dhaqaalaas ma dhaafinayso takalatar inuu weydiyo waxay tahay xildhibaanka wuxuu leeyahay dowladda ku qaba kalsooni maxman ku qabana kalsooni maxmo laakiin waxaan aragnay laba badan dowladda qaadayso ayadoo tarin guddiga baarlamaanada ama senatarka guddiga khayraadka senatarka ee guddiga khayraadka ee baarlamaanka Soomaaliya aqalka hoose miyaa diyaarin doono shuruudaha lagu soo geynayo khayraadka Soomaaliya mise waxaa go'aan gaari doono wasiirada oo kaliya taasoo kow talabaad waxaan weydiinayaa gobolada laga helay khayraadka maxay ka faa'iidayaan number 1 wuxuu baahan yahay iskuulo waxbarasho wuxuu baahan yihiin caafimaadyo wuxuu baahan yahay shaqaaleysiyo tasaddexaad oo muhiimsan waxay tahay maxaa saameyn caafimaad ka soo gaari karo shacabka degan goboladaas waayo markii khayraadka la soo saarayo shidaal soo saarayo waxaa badan ka dhasho caafimaad darro
yaa loo haysanaya waayahay waa mahadsantahay maxamedow aan si dhaqsiyale xildhibaanka aan ugu laabto si uu su-aalahaas kaaga jawaabo su-aasha uu ku weydiiyey waxay tahay yaa suuq geynaya ma guddi baarlamaan baa suuq geynaya hadiiba shidaalka soomaaliya la suuq geynayo shuruudaha waxaa dejinaya guddiga baarlamaanka maxay yihiin waxa weeye sharci markii la samaynayo baarlamaanka soomaaliya ayaa baas mareeya laakiin waxaa soo gudbiyey golaha wasiirada markay soo gudbiyaan baarlamaanka la keenaa akhrinta koowaad wasiirka markuu akhriyo guddiga ku shaqada leh sharcigaas ayaa loo gudbiyaa guddigaas akhrin labaad iyo akhrin saddexaad marsiiyo dood ka doodo kadib aa la sharciyeeya goboladana farxaanow waa ku maqlaa danjire ciid waxaa kaloo jira arrintan waxaa la leeyahay sida maxamed uu hadda ku doodayo saamayn caafimaadna waa ay keeni kartaa maxaa arrintaas ma laga sii gaashaantay waxaasoo dhan waa laga gaashaamanaa shuruucdooda la samaynaya shuruucdooda marka la sameeyo ayadoo waadaxaya bulshada loo soo bandhigaya oo madaxweynaha saxiixay marka biisi kuma anihin oo muxuu ahay wax weyn waayahay marka ciid bedel adigan hadda kugu soo laabanayaa waayahay ciid bedel adigan kugu soo laabanaya labadii wadan hadda waa ay kala taagan yihiin kenyana mowqifkeeda meel adag ay geystay wadaxaajoodyana waa ay socdaan soomaaliya hadda laga warsugayaa maxaa dhinaca soomaaliya laga fili karaa walaa horta dhinaca si kooban dhinaca soomaaliya waxaa laga fili karaa inay soomaaliya si deganaanshihii diblomaasiyadeed ee waagi dhaweed ay muujisay ay meesheedii kusii adkaysato oo ay tiraahdaana laba wadan oo derisaan nahay dana ka waaweynaa nagu yaala laba wadan oo saaxiibaa nahay taariikh iyo history baa naga dhexeeya khilaafaad hore waa usoo marnay dhib hore waa usoo marnay aynu ka warsugno go-aanka maxkamadda markay dhamaatana aynu markaa ka wada hadalno wixii meesha kasoo baxay iyo sidii aan danaha iyo masaalixda laysu waafijin lahaa maxkamadda a idin fahansiiyo maxkamadda waxa weye maxkamad caalamiya go-aankeedu waa go-aan sharciya dawladaha go-aankaas ay kasoo saartana waa binding oo dawlad kasta waxaa la rabaa inay go-aanka ixtiraamto meel mariso caalamkana waxay u dirtaa message ah go-aankaasaan qaadanay dawladaasaa ku saxsan dawladaasaa ku qaldan laakiin maxkamadda mushkilada ay leedahay waxa weye go-aan markay soo saarto go-aankaas enforcement mechanism wax la yidhaha ubaahan yahay yaa meel marinaya hadda matalan markii badii la yidhahdo go-aan baa laga gaaray soomaaliya loo xukmiyo kenya ay tiraahdo anigu ma ogoli mana aqbalayo yaa xoog ku marsiinaya kenya inay aqbasho cid ku qasbi kartaa male markaad maxkamadda aadayso waa inaad u diyaarsan tahay awoodaada mid siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed iyo mid ciidan waa inaad tahay qaran jira waa inaad tahay oo go-aanka markuu kuusoo go-aan hadhow go-aankaa meel marin karto marka soomaaliya dhinaceeda horta deganaanshaa laga rabaa arrinta suuqgeynta iyo inaan la suuq geynin iyo soomaaliya inay diyaar u tahay iyo inaysan diyaar u ahayn iyo arrinta amisom iyo waa arrimo guud kenya sida noo muuqata hadalladan ay ku hadlayso waa hadalla ay rabto inay kusoo jiidato culays ku saarto dawladda inay wada hadal gasho dawlad hadda dagaal kusoo qaadi doonto soomaaliya ma aha dawlada hadda soomaaliya qabsan doonta ma aha ciidankeeda gudaha ka jira dawladda hadda xataa cunaqabataynta ay ku goodinayso samaynaysa maaha cunaqabatayn hadday tiraado waa samaynayaa 3 arrimooda waaweyn bay ku khasaaraysa dhaqaalihii dalka kasoo gelaya soomaaliya ama qaad ha noqdo ama ganacsadaha keenayeen dalka waa lagala baxaya khasaaray ku helaysa xiriirkii soomaaliya ee caalamkii hay-adahii joogay ee UN-ka ee dhaqaalaha badan ku bixinayeen hadday cunaqabatayn soo saarto hay-adahaas waa in dalka laga raraa Kenya oo meelo kale loo rabaa dhaqaalihii Kenya gelaya ee hay-adaha UN-ka ee ku baysgaraysa Nairobina way weynaysa ciidanka Amazon millions of dollars lagu siiyaa ama mushaar ahaan loo siiyaa ama qalab ahaan loo siiyaa dhaqaalahaas weyn bay weynaysaa marnaba Kenya dagaalna ma qaadi doonto cunaqabatayna ma sameyn doonto bedel arrinta maxkamadda ee aad soo qaaday Soomaaliya ayaa arrintan dacwada ah maxkamadda geysay ayadaana iminka waxaa la leeyahay bilowday inay soo bandhigto oo shirar qabato looga hadlaayo arrimihii shidaalka oo Kenya waxa ay leedahay anagu wali waxaan sugaynaa in maxkamadda ay go'aan gaarto oo maxaan ku raacnaa anagoo sugaynaa go'aankii ayay Soomaaliya tallaabooyin kala qaadaysaa marka dhinacaas marka laga fiiriyo doodaas Kenya ay arrintaas ka leedahay soo garku ma laha Kenya arrintan waa garway ku leedahay hadday leedahay blogskii badda ee aan isku haysanay bay Soomaaliya suuq geynaysaa
kenya garway ku leedahay su-aashaa mar hore aa weydiisa aan ifino mugdi kuma jiro dawlad soomaaliyeed inay inkirta maaha london bay tagtay khayraad baa laga helay bay tiri soomaaliya shidaal baa la helay shidaalkaasu meelahaasuu ka buuxaa intaasoo ceel waayo waktigaasay samaysay timeline bay u samaysay waxay tiri diyaar baan u nahay kambaniyadii diyaarka u ah inay khayraadkaas ay maalgashadaan diyaar baan u nahay inaan helno soo codsadaan applicationska buuxiyaan taas micnaheedu waxay tahay mugdiyaa la gelini soomaaliya shidaalkii way beec geysay mugdi kuma jira taas mushkilana ma laha annaga waa qabnaa inay dawladda soomaaliya khayraadkeena ay beec geyso in la qarqariyo oo mugdi la geliyana ma aha waxa london ka dhacay waxa weeye khayraadkayagii aan xaqa u lahayn ee anagu dal aan u nahay u madax banaanayn laakiin dawladda soomaaliya iid waxay tiri oo ay ku adkaysatay waxaan beecgeynay ma leh waxaan xaraashnay ma leh xog ayaan soo bandhignay keliyay ku adkaysatay dawladda laakiin xogtii lasoo bandhigay qaarkeed waxaa ka muuqday taariikho iyo tartan iyo shirkado iyo xilliyo saxiixiya ay dhici doonaan ayaa ka muuqday hada macnaheedu waxa waaye aa idiin turjumay waa diblomaasiyadda waxaa la yidhi waa sidaa rabto dhinac kale u dhigto micnaheedu waxa waaye wan annagu shidaal baan helnay khayraadkaasaanu leenahay waktigaasaa jira ciddii danaynaysa waktigaas applicationka kusoo gudbi micnaheeda marka aan turjunno oo si dhaba u turjunno waxa weeye soomaaliya diyaar waxay u tahay inay shidaalkii geyso suuqyada caalamiga kambaniyaduna ay soo dalbadaan mugdiya aynaan gelinba dal baan nahay xor baan nahay khayraadka waa u baahan nahay dawlad baan nahay shacab baan nahay baahideenii waan ku kabaynaa dhib ma laha inaan xoolaheena aan suuqyada geyno o aan gadno inaan sidaa loo cadeeyo safir adiga xildhibaan waxaan weydiinaya maxaa dhici doono haddii maxkamadda ICJ-da ay u go'aamiso Kenya inay qaato meeshaas maxay Soomaaliya sameynto markaas ilaa hadda waxaan u badannahay inay Soomaaliya guulaysanayso u badannahay waa isleeysiinay dad iyo duurna waxa ka filan ka soo baxo kama soo qaadba maxkamaddii waxay u codaysay ama u go'aamisay dhulka inay qaato dawladda Kenya maxaa xal markaas innaga qaladka lahayn geyntiina qalad baan ku lahayn haddana marka dambe qalad innaga yeelanayna waana laga adkaaday waana laga guulaystay shuruucda caalamigaana markaas waa inaan ixtiraamnaa waxayna Soomaaliya markaa ku qasbanaan doontaa marka dee inay go'aankaas ixtiraamto because codsiga iyo dacwada iyadaa geysatay miyaysan noqonayna Soomaaliya iyo dhaqaale bixisa maxkamadda maadaama ay u eexatay ama ay maadaama u go'aamisay dawladda Kenya dhaqaalahaas laga dalban doono Soomaaliya oo ganaaxa ayaa bixin doono waa garaac lagama dalbanayo maxkamadda in la fahmo waa maxkamaddu garaac ma samayso maxkamaddu waxa waaye wadan kusoo xadgudbay Soomaaliya lagu soo xadgudbay badeedii dacwadii bay geysatay waxay tiri idinka dawladaha u xukmiya khilaafaad ama bad ama dhul ama cir na kala saara annagii kay xuduudo badeed baan isku haysanaa maxkamaddu way fadhiisan advisory opinion wax la yidhaha soo saareen talay soo saareen go-aan bay soo saareen waxay dhihi go-aankaas qarashka Soomaaliya galaya waxa waa qarashyada millions of dollars ah ee lawyerska caalamiga lagu qabtay ee ilaa hadda la bixinayo ee lawyersku ay dacwada ku galayaan qarashka un baa nagelaya wax qarash kale oo dambe oo nagelaya ma laha mudane ciid waa mahadsantihiin dib aan ugu noqono ra'yiga dhageystayaasha ee nala soo xiriiraya barnaamijka ku taxan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا BBC iyo martida barnaamijka aad baan dhamaantiin salaamaya dawladda Kenya inay sangar lahayn ayada bacdaysay wasiiradeeda arrimaha dibadda Monica Juma markay shala lahayd dawladda Soomaaliya marnaba maysan aqoonsan اعترافين حدودها waxa kale yiraahdo NFD in ay Kenya ka tirsan yihiin waxay tusaale u ahayd oo cadeeysay in ay Kenya xadgudub toos ah ku tahay dhulka badda iyo hawada Soomaaliyeed maadaama ay ayaduba qirtay dawladda Soomaaliyeed xuduudda dadka Soomaaliyeed dhexdeeda kala yaala in aysan aqoonsanin marnaba aysan aqoonsanin waa mahmahdii Soomaaliyeed oo ahayd afkaaga ku xiro aan ku furin waa la kaago ayaan leeyahay Monica Juma waa Sayid Mawlid Ismaaciil oo jooga Suudaan oo ka tirsan gobolka Awdal haysata u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya aad baan uga xumahay waxaan soo jeedinayaa in miiskooda hadalka la isugu yimaado xalna laga gaaro khilaafkan si loo dhowro xiriirkii wanaagsan ee ka dhaxeeyay labada dal السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقاعي وعبد الله محمد نور أو جوج مقدشة وحيلتها كينيا وحي ودوا كو قفصة كو قدميسيد
waxaan talo usoo jeedinayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan leeyahay ha loo midoobo muxuu yacni Kenya haddii muxuu yacni aan noqono dad muxuu yacni iskhilaafsan oo khilaaf oo ka dhaxeeyo sidaan iska daran ayaa muxuu yacni dad aan la hadli jirin la hadli doono marka waxaan leeyahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed aan mid noqono dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaan leeyahay wadanka idinka hoggaan u ah jawaabta aad ka bixinayseen falalka Kenya ay sameynayso ha noqdeeno kuwa u dhigma yacni وهاجا كواسنا وحي هاي انقار كميدا دتك برنامج كتحن حلبان داير امين جيسو قيميه دنبي برنامج كان سو غارني maxaa aragtaa in xalku uu yahay waa maxay talaabooyinka ugu wanaagsan ee labada wadanba u furan inay qaadaan si looga fogaado in arintu ay sii durugto faraxow waad mahadsan tahay labada dalba waxa dan waa inuusan muxuu ahay dal kale uusan gardareysan in la dhowro diris wanaaga in la dhowro muxuu ahay wadajirka waayo Kenya iyo Soomaaliya wiligood intee caalam adduunyada intee jirto way diris ay ahaanayeen diriskaagana adiga ma dooratida Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa dadku u door diriskiisa inay Kenya dirisna la ahaato xadna la ahaato Ilaah baa noo dooray iyadana Ilaah baa u dooray inay Soomaaliya ay diris la ahaato marka in la dhowro diris wanaaga ayaa fiican arinta uu ka dhawaajiyay Ambassador Ciid muxuu ahay dalka Soomaaliya hadii dacwada loo guuleysto waxa weey taas go'aankeeda maalintii uu yimaada ayay dawladda Soomaaliya iyo muxuu ahay golayaasheeda ay ka shiri doonaan lana ogaanaya waxa ay tahay hadda aniga ma doonayo inaan si faaqido qof si faaqidi karana malaha go'aanka ay Soomaaliya ka qaadanay marxalada noocaas anday timaado laakiin midda dhabta oo jirta waxa weey dawladda Andiriska nahay walaalahayga Kenya waxay rabaan cadaadis inay ku saaraan iyagoo markaa isla Soomaaliya sidii hore waa tabarirtaa ama dalkeeda burbur u galay hadda uu burburka soo baxaya iyo wax noocaas arintaas fikir qaldan waaye walaalahayga ka soo noqdaan dawladda Andiriska nahay ka soo noqdaan qaldaadkii hadda ay galeen oo ka dhacay la ciiri labada dhinac aan rabnaa inaan fiirino qolo walba waxa ay tahay inay samayso si aysan arinta u sii durkin adigana waxa leedahay Kenya ha ka laabato iyo ha ka leexato iyo ha ka soo noqoto wali kama aanad hadda dhinaca Soomaalida waxa laga rabo sida ugu haboon Soomaaliya waaba sheegayba anagu ma gardareysanayno meesha waxa aaminsan yihiin laga gardaran iyada lagu haysto anagu kuma haysana iyada nagu haysto dhulkayna anaga Soomaaliya hadaan nahay maba xirmooyinkaas ma la soo caruum ma laga sameeynin ma la soo bandhigin baaritaankeedii ma la soo bandhigin marka sida aanu ilaalinayno maxkamada socoto waa waadax qof kastana wuu arkayaa xirmooyinkii iyo waxaan la sheegayo oo caruur baneedka loo sameeyay London lagu qabtay kuma ayna jirin meesha hadda ay dacwada ka socoto badayna walaalahayna ay nagu qabsadeen kuma ay jirto marka anaga waa ilaalinaynaa diris wanaaga ayagana ha ilaaliyaan waa mahadsantahay danjiri ciid bedel arrimaha miiska saaran maxaan ku iraahdaa ay tahay in la kala doorto si arintan aanay u sii durkin maxay yihiin muhiimadda waxa waaye Soomaaliya inay dawlad iyo shacab fahmaan Kenya diris weeye ma kala maarano walaalaheen weeye dal Afrikaana weeye dal dimuqraadiyad yeeshay weeye dad dawlad wanaag leh weeye dad ilbaxa weeye dad reer galbeedka muddo la shaqaysanaya weeye dad aan wax u badan ka baran karno weeye dad Soomaaliyeed deganaa hadda xiriirkooda uu fiican yahay weeye horumarna ay ka sameeyeen waa dal aynu inagu u baahanaa inaan wax ka barano kana faa'iideysano marka sidaa awgeed dawlado hadday mar daris yihiin khilaafaad wuu dhacaa khilaafaadkaas laakiin inuu fogaanin oo meel xun uusan aadin waa inuu siyaasadda meesha ugu dambeysay ee dawladda hadafkeeda uu yahay waa inuu ka noqdaa waa inay ka ku lifaaqdaa diblomaasiyad ay ku hubinayso in maxkamadda go'aanka soo baxaya ayna Kenya uga dheeraynin oo si dadban Kenya loo diblomaasiyada caalamiga ay gasho maxkamadii aysan dhinac kale u rogin go'aankii waayo judgeska fadhiya maxkamadaha New York bana loogu keeni jiray dawladahooda naga loo bigrayn jiray cod baan siin jirnay 5 nin oo kamid ah anaga cod siiyay aniga shakhsiya Cabdiqawi anaga soo saarnay ka Ingiriiska anaga cod siinay
ودولتي مثلا ضلبي مثلا عيد بدل laba arrimood ayaa jira oo ilaa hadda labada dhinac ay kala taagan yihiin Soomaaliya waxay leedahay aan sugno wixii maxkamadda ka soo baxa Kenyana waxay doonaysaa in wada hadal la galo labadaas ma aha qodob kale miyaa jira mise waxaas leedahay labadaas miiska saaran iminka midkood ha lagu kala baxo ma labadaas laftikooda la iswaafajin karaa dowladda Soomaaliya oo aan ka tagaynin mabaadi'deeda ah maxkamadda bay janal diblomaasiyadeed oo waaweyn dowladda saaxiibka ah u marin kartaa Kenya fariin ah qaali ahaaba walaalaynu nahay waxba inaga xumaan maayaan hadaa maxkamadda naga heshaan waa ixtiraamayna hadaa idinka helana ceelashaan weyn ee Jubbaland ku yaala kuwa ka waaweyn baan leenahay wadanka waa maal gashanayna farxaan oo hal daqiiqo hadaa ay siiso waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo arrin muhiim ah madaxweyne Kibaki baan u tagnay Sharif Hassan oo gudoomiyihii baarlamaanka loo doorto state house-kana loogu geeyay aniga u turjumay ma waa la ii sheegay anaa fadhiyay shirka 2 saac iyo bar baan la fadhinay dowladda lama dooran Kibaki madaxweyne lamida oo caalamka aan arkay inta noolay maarag wuxuu yiri walaalaynu nahay daris baynu nahay ma kala maarno dalkan waa dalkiini dowlad baa idin dhisnay Soomaaliya ku noqda waa idin garab galayna qaxootigiina lama eriyo dalkay ku noolaanayaan kii raba citizenka iyo qaadanaya kii rabana dalkiisu ku noqonaya cid la eriyo cid xoog qaxootinimo lagu celinaya ma jiro dhaqaalaha labada wadan inaan isku keenaan rabnaa inaan isdhexgalnaan rabnaa dowladnimo iyo Soomaalinimo iyo Afrikaanimo inaan ku wada noolaan madaxweynahaasu wuu jiray shalay maantana message ka duwan baa Kenya ka soo yeeraya marka waxaa la rabaa dowladda inay iyadu fahanto siyaasaddu way isbedelaysaa hoggaanku Kenya wuu isbedelayaa isu bedelayno laakiin masaalixda Kenya ma kala tegi karno inaan iswaafajino baa muhiim waa mahadsan tahay maxamed cabdirasaaq xalka muxuu ku jiraa ma in qolo walba ay sugto xukunka soo bixi doona ma in la wada hadlaa mise wadooyin kala jira horta wadooyin waa la heli karaa waxaa la furi karaa Soomaaliya iyo Kenya way fadhiisan karaan waxayna ka hadli karaan sidii loo sameyn lahaa joint venture ama maalgashi labada dhinacba ah joint venture iyo maalgashi inta la gaarin hadda xiriirka diblomaasiyadeed waa dhaawacan yahay waa laga hadli karaa waa isku iman karaa haddii maxkamadda adiga ay ku xukunto أنا حسوا قاريو هذا يحكون مسيو كلاته مركز سين أو في سين كرنا أنا قم صار فيرنا يعني حرير كلاوي لا ضلا تصال ودك لسنغابور هذا فيرنا ملاجي وعيرس أو حتى أنا جاكوا أيها كتو جويسي هذا أنا وحكمتي هو دمار قارة ويت إيشيا معاك يعني درسوناك إني سميان جون فينشا أو خيرات كذا مركز كينيا كل سومالي بكو يالو سومالي ما كمالنت ويلقى مكلا بحيان ganacsigana Soomaaliya hayso toonka arkay Soomaaliya haysato 20 sano kadib saan aniga nin ugu dhahay nin Kenya ugu dhahay 30 sano kadib Kenya waxa dhici karta inuu madaxweyne ku xigay madaxweyne Soomaaliya ka noqdo marka waxa habboon in la isku leeyahay miiska wada hadalka xiriirkii la soo celiyo maxkamaddiina la sugo haddii la sugayna Soomaaliya sidii loo maalgashanaa meesha dalba inay ka fikiraan waa mahadsan tahay aan dib ugu laabto akhyaarta Daahir Amiin Jeesow iyo ciid bedel Daahir Amiin Jeesow weli ma isleedahay ama ma aaminsan tahay in channelladii ama marinadii wada hadallada ee Soomaaliya iyo Kenya ay furan yihiin oo xal u iman karo Soomaaliya iyo muxuu ahay dalka aan dariska nahay Kenya mar walbaan wada hadli karnaa meel walbaan ku wada hadli karnaa laakiin inta aan ka ogahay marna miis wada hadal in badda Soomaaliya ay nagu haystaan walaalaha in la keeno anigu ma ogsooni mana jiri karto mana dhaxayso insha Allah maxkamadaan u gudbinay maxkamadaas aan ka warsugaynaa wixii muxuu ahay ka soo baxo aydaasana aan ku go'aan qaadanaynaa haddii muxuu ahay maanta waxa lagu murusan yahay wax kala ahaan lahaayeen waa laga wada hadli lahaa laakiin waxa lagu murusan yahay waa gogosheydii waa biyaheygii waa hantideydii oo ay 15 milyan oo Soomaali ah ee af Soomaali ku hadashay isla leedahay marka cidna kaligeed gooni ugu ma hadli karto muxuu ahay hanti la wada leeyahay hantida hanti qaran waaye taaka suul intii la saarana qof Soomaali oo ka ogol ma laha
waa mahadsantahay ciid bedel nidaamka diblomaasiyaddana si fiican ayaa u taqaanaa jannaladii diblomaasiyadda weli ma furan yihiin mise waxaa is leedahay hadda loo baahan yahay howlahaas in la galo jannaladii diblomaasiyadda si fiican ay u furan yihiin xiriirkii labada wadan weli waa fiican yahay safiiradii unbaa la kala qaatay weli dowladuhu way wada hadlaan labada dowladood dowlado waaweyn oo dhexda ku jira oo bulshada caalamka aan u dhaqaano oo hadda ku dhex jiraa way jiraan aan wada hadalna micnaheeda ma aha soomaaliya badeedii bay bixinaysaa aan wada hadalna waxa weeye aan khilaafaadka xalino diblomaasiyaddana waaba dhaqanka ka mid a wada hadalka waa lagama maarmaan in kenya lala hadlo iyada oon maxkamadii go-aamadeediina laga hordegaynin dhulkii soomaalida biyihii soomaaliyed yaa is leedahay hadlaynana wax meesha ku jira maaha yaa is leedahay kaalintaas maanta waa ay buuxin karaan in labadii dhinac ay u kala dab qaadaan oo isku soo dhaweeyaan laba dowladood oo xiriir weyn oo taariikhna la lebaa jira oo xiriir iyo taariikhna lale kenya waa dowladda maraykanka iyo dowladda ingiriiska khaasatan ingiriisku oo taariikhdan historyga labada wadan aada uga warhaya dhulka laysku hayo bixiyey baddan xoogagaal u ah waxay noqon kartaa dowlad dhexdhexaada oo labada u dabqaada waana laga maarmaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inay isticmaalaan journalistka diblomaasiyadeed